laamaha amniga uu wehlinayo wasiirka amniga qaranka Soomaaliya ayaa go'aamo adag ka soo saaray xalinta Muqdisho iyo hubka dhigista caasimada dalka. Xasan Maxamed Aweys ayaa warbixintan magaalada Muqdisho inooga soo diray. Hay'adaha ammaanka ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay soo saareen amaro quseeya arrimaha ku aadan ammaanka caasimada iyo sidoo kale hubka lagu dhaxsito magaalada Muqdisho. Hay'adaha ammaanka dawladda federaalka oo madaxtooyada Soomaaliya muddo 3 saacadood oo ku dhawaad ku shirsanaa ayaa waxa ay ka wada hadleen qodobo dhowr ah oo ku qotoma xaaladaha ammaanka dalka waxayna ka soo saareen go'aano adag. go'aanada ka soo baxay shirkaasi waxa kamid ah askariga magaalada Muqdisho oo qori ku dhex wata tallaabo sharci ayaa laga qaadaya waana la xirayaa in tallaabo sharci ah laga qaado cidii lagu arko dharka ama dariska ciidanka xoogga dalka oo taliska ka tirsanayn in ciidamada iyo gaadiidka aan warqad fasax wadan in aan lagu arki karin gudaha magaalada Muqdisho. ciidamada xasilinta ayaa sugaya ammaanka xarumaha dawladda iyo ammaanka guud ee caasimada. ciidan kale laguma arki karo Muqdisho in la faarujiyo oo laga baxo guryaha ay leeyihiin ciidamada xoogga dalka ee ku yaala Muqdisho 1 July kadib shacab laguma arki karo guryaha ciidamada xoogga. shirkaas jaraa'id waxa si wada jir ah u qabtay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, agaasimaha sirdoonka qaranka, taliyaha booliska Soomaaliya iyo sidoo kale wasiirka amniga. haddaba waa kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya. waxaa la mamnuucay markaan ku celinayaa in tuutaha uu gashto qof aan ka tirsanayn xoogga dalka Soomaaliya. cid kasta oo amni u yahay ama security u yahay ama meel kasta oo ka shaqeeyo qofkii lagu helo tallaabo adag oo sharci ah ayaa laga qaaday. xafiis uu talisku magacaabi doono ilaaladooda khaaska ah aan kordhin doono SBU aan yiraahdo ciidan special police oo la asaasi doono qaybtii ugu horeysay in ay diiwaan gelin inta la sameynayana aan ayaga u sameeyno calaamado iyo dhar loogu talagalay. mar labaad waxaan ka mahad celinayaa wada shaqaynta shacabka oo suurtagelisay waxyaabo badan oo xasilinta gobolka Banaadir iyo dhammaan wada shaqaynta ciidanka amniga ay la sameeyeen. ciidanka iyagu wuxuu ku shaqaynayaa duruuf adag marka waxaa la rabaa in la fahmo oo lala shaqeeyo. dardaaranka aan rabo inaan u soo jeediyo wuxuu yahay ciidanku inuu si fiican oo asluub leh oo naxariis leh shacabku ula dhaqmo. haddii shacabku uu arko qaladaad iyo gafaf iyo waxyaabo hadda aanan loo baahnayn annaguna waxaan ballan qaadaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan inaan saxno. Rome was not built one day ama arrinkan hal maalin lagu masaxi karo hana loo dul qaato. waxaan rabnaa oo kaleeto ciidamada howl ay ku jiraan hawshaasna howl laga gorgortamaayo ama qof loogu turaayo ama qof hadda loogu dan lahay ma ahan. qof kasta oo ay farsoo gasho iyo qof kasta oo ay joojiyaan waa inay ciidamada la shaqeeyaan una hoggaansamaan amarkooda. caabid beedki Allah u yiri markuu wuxuu sheegtay laba arin oo Quraysh oo ku badbaajay waa baahida iyo cabsida. marka ummadda Soomaaliyeed labadaas isku darsoontay waxaan la ugu baryayaa abaarta inuu naga dul qaado sidoo kale amniga. marka amniga waxa annaga laga rabaa dadaal inaan sameeyno haddaan dadaal sameeyno alana masaaciday action lagu baahan yahay. marka waxaan rabnaa walaalayaal dadka ku nool magaalada Muqdisho qofkii hotelkiisa hub ku haysto ama uu sharciyeysan yahay hasaga haysto meeshiisa laakiin hadafka ma aha magaalada in lagu maro shay taliyaashii ugu horeeyay sheegeen Cabdibilow dhashii ka saaran waa ka mamnuuc waa go'aan guud dabajeex looma ogolo. maalmihii ugu dambeysay Muqdisho waxa laga waday arrimo xasilin ah oo ammaanka Muqdisho lagu sugayo iyo sidoo kale hubka dhigis lagu sameynayo kuwa lagu eedeeyay in dariska ciidanka ay wateen oo ay dhibaato dadka ay ugu geysanayaan. Xasan Maxamed Aweys TV-ga Iraadiyaha Jubbaland Muqdisho.